codsanayaa sida ugu dhaqsaha badan la inii soo gurmado dadka duubka ku xidhay qaarban dhab loo shidin muslimiinta waxaan ka codsanayaa muslimiinta shahaadata inay soo gurmadaan awlaadda inay waraabaha iga dayactiraan ayaan u baahanahay halkaasaan ku dhex jiraa sidaasaan baaba u ahay waxaan ka codsanayaa madaxweynaha iyaga Muuse Bixi Cabdi mar labaad iyo mar saddexaad aan leeyahay madaxweyne waxaan ka codsanayaa halka ayaan ku dayacnahay dadkaaga aad mas'uulka ka ahayd baanu nahay xabaalaha sheedaha ayaanu waqooyigooda daadsanahay waxaan leeyahay sida ugu dhaqsaha badan inaad noo soo gaadho hoos noo eegto bil baanu daadsanahay taagiga biyaha ku cabayna waxa halkaasaan roob iyo dhaxan iyo dabaylba u fadhinaa muslimiinta shahaadatana waxaan ka codsanayaa inay soo gurmadaan degtay toor loogu dhisayna dawladii baa wax sheegato ka dumisay waxa ka dumiyay ninka waaxda gudoomiyaha koodbuur ninka sibeer leeyda gidiga maalintii waxaan hajaarkii galkahay warinaade Somaliland waa ninkii dalka u soo halgamay uu dhaawacayay waada awlaad yar buu haystaa reerka ay dhaxantu hayso ee cadceedu hayso ee kol roobku ku daayo ee kol bacad ku haya dhibaataysan waxay cunaan iyo xabaan bay waxay waxba aan haysan dawladdu halka ka qaado ummadda muslimiintu halka ka qaado wixii jiir dabaqsanay reerka halka ka qaado haddii aanay qaadi karin dawrawalka iskaga cunaan wax kale nidaan ma garanayne ma ay waxaan qaleyn adigu waad maqlayn ma ay xigeenku uu ogaa boqol goor baa loo tagay wuxuu dhulku waan xidhay 6 biloodna meel ma fadhiyo cadeed ma fadhiyo marka geedna xid laa kama dhalana wadanka waad ogtahay waxa ka taagan waad ogtahay nin wax ma qabto laakiin adigu xukuumadda Soomaaliland bad gacanta ku haysamay meel baad dejin kartaa in yar oo waxaan ku raafar laba qol ugu dhisnaa jingadeed waa inta adeerkisid ee ugu dhisnaa kartaa waad dejin kartaa waxa dumiyay maayir ku xigeenka waan tagay waxa dumiyay gudoomiyaha degmada koodbuur baa dumiyay ha geliya cagab wuxuu yiri suweer meel baan geynay oo dejinaya haddana wali muu soo ag marin